waxaan idin weydiinayaa su'aal haddii maanta lagu dhiibto boorso dahaba waa amaano waxaan xaqiiqa ah in adduunku kula yaraan lahaa meeshaad dhigi lahayd soo ma waad ku rafaadi lahayd qari inta dhig meel baad aamin ageli guriga ha ka bixin ilaali war cunugii aad dhashay baa ka daran oo amaano ah boorsada dahabka iyo diamondka ah cunugaad dhashay ayaa ka amaano badan oo ka adag ku jirtaad u maleynaysaan xikmad cunugii intaasoo dhib ah aad u soo martay markii uu caqliyeystay oo uu soo koro inaad cartoon iyo TV iyo intaad ku tuurtid meel kale aad adigu faraha ka qaadid ma caqli ba tusaalahaas wuxuu la mid yahay nin guri dhistay oo kale oo qurxiyay oo dayn qaatay oo kuraas dhigay oo daahiye ku xiray oo markuu wax walba dhameeyay kuraas wax walba uu dhigay albaabada intuu u ballaqay yiri mukulaalaha iyo eeydu guriga ha ku ciyaareen oo ha dageen saasuu la mid yahay sababta cunugaad intaa soo korinaysay ba TV iyo cartoon iyo school public school kaliya aad ku fasaxday oo ku sii daysay waana mid ay ku magacaabaan culimadu wa idha al-maw'udatu su'ilat ayu soo galaya cunuga waa la dilay cunugaas camal waa la dilay wuxuu quraanku noo tilmaamayaa markaas oo kale waa markay dhihi jireen xadiidka nabi sallallahu alayhi wasallam cunuga xataa idanka waa la weydiistaa wixii lama taabto markuu 5 sano gaaro nabi sallallahu alayhi wasallam caana loo keenay wuu cabay wiil yar baa midigtiisa fadhiyay niman odayaal ana way fadhiyeen markaasuu nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ma ii idmaysaa inaan nimanka waaweyn siiyo waa cunug yar markaasuu wuxuu kuma idmayo waa cunuga baawar buu isticmaalaya cunuga yarka kuma idmayo إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء كاسارن إلا laba sano intuu ka gaarayo cunuga waa la koolkooliyaay oo cunug wax ma barto waad ogtiin wuu yar yahay laba sano cunugu markuu gaaro waa inaad cunuga ku dadaashid innaga cunuga intaan ihmaalino iska dayacno ayaa markuu weynaado baa lagu dadaalayaa lama qaban karo cunug weynaaday lama tarbiyeen karo maxaa la rabaa marka nabi sallallahu alayhi wasallam xadiis buu wuxuu ku leeyahay inna allaha saa'ilun ilaahay wuu weydiiyaa kull rajul nin kasta amma istar'ahu wixii uu u dhiibay xafida inuu ilaaliyay am dayaca ama inuu dayacay hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baytihi ila ninka la weydiiyo reerkiisa caruurtaada waa lagu weydiin mid baa lagu weydiin xaaskaaga waa lagu weydiinayaa marka waa amaana ciyaalku waxaan idin weydiinayaa su'aal haddii maanta lagu dhiibto boorso dahaba waa amaano waxaan xaqiiqa ah in adduunku kula yaraan lahaa meeshaad dhigi lahayd soo ma waad ku rafaadi lahayd qari inta dhig meel baad aamin ageli guriga ha ka bixin ilaali war cunugii aad dhashay baa ka daran oo amaano ah boorsada dahabka iyo diamondka ah cunugaad dhashay ayaa ka amaano badan oo ka adag marka waxaa la rabaa cunuga inaad ilaalisid markuu yar yahay inaad korisid waxaa jira gabay oo ahaa inna al-ghusuna idha qawamtaha i'tadalat wala yalinu idha qawamtahu al-khashab geedka markuu soo baxo oo uu yar yahay hadii la toosiyo wuu leexdaa laakiin geed weynaaday lama toosin karo wakadalika cunug waa saas oo kale wuxuu leeyahay qad yanfacu al-adabu al-ahdatha fi mahal cunuga yarka adabtu way anfacdaa walaysa yanfacu fi dhi shaybati al-adabu nin cirale adab ma qaato bal adigu nin qowsaar ah oo 20 sano jira ama 15 sano jira ama 30 sano jira tarbiye ma tarbiyeyn kartid yatamarrad alayk وكو madaxad kaanaya ma qaban kartid laakiin cunuga yarka ah waad qaban kartaa waad tarbiyeyn kartaa ولذلك salafkii waxay dhihi jireen cunugaaga laacibhu 7 toddoba sano cunugaaga la ciyaar waa toddobada sano oo yar yahay ciyaarsi wa adibhu 7 toddoba sanana adbi waa toddobada ku xigta wa saaxibuhu 7 toddobada kalena la saaxiib u fiirsada toddobada ugu horeysa waa la ciyaarid waa naxariis waa waalidnimo toddobada ku xigta waa edbin toddobada ku xigtana waa saaxiibtinimo inagu toddobadii ugu dambeysay oo saaxiibtinimada ahayd ayaan rabnaa inaan cunugiisi cunug laba jira aanu control oon dillo oon khasabno oon wax kasta aan rabno inaan ka dhaadhicno kama dhaadhicin karno walidaalika ikhwaani cunuga cimrigiisa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah 2 sano cunugu marka uu jiro ilaa uu ka gaaro 10 sano
بلو في رصدة لبس سنة عنق مركا أوجره وحي علماء دلتين ابن سنتين لبس سنة عنق الجراء وعنق مركا وجوه الرئيسة وقعه وصعنيا وحبو جيديا واتقنا عيالك وأركتين وحبو جيديا ما أنت نن وحور وإنه وحوض وحي سبين جرين وحلاق جذا وحوين أو كعياره ما أنت وجيده أو الريح سوء كره ميل وين أو بنام بالجيا سوء دعاء أو أرض أو صعك أو برتو وابن سنتين فيه والجود ذاليا والجود ذاليا مركا وجار الله بس سنة يبر مركو عنق جاره وحيديه جيران وحاليها سيد الله ومركو عيالك وهم ذا حأذجي هنا ضاضوا في رصتان وحكى سود هذا وحكوليه مايا نو وكوليه كوا هذا ماشي عند وحية قرا نو كليه وحكوليه نو مرحبا أنا مرة بتاع نو بي مرة بتاع نو مسيحاني صار نو قدتك هاي عيالك أو في رصتان لبس سنة يبر عنق جرا محل السماية وين التربية محل كل تربية لسا وحي علماء دهان كلمة كسته أو يس يا نو نعم أما لا لو قد جواب ما بلا ويديه فير بل لما ويديه وحارتا إنا سيسي جوس إنا سيسيد وحلا هاي جوس كميان كوبا ديام سوا كويا ريا ماشي عادي له جوس مرة بتاع وحقولي مرة مركز هو وحقولي هاي إيه يرى أو يرينا مركز سيحشد اللي جارو ما حد سيحنا يسا ما سهل ساعة كده بعد سيحنا يسا وحقولي هاي هل ساعة كده بعد سيحنا يا هذا ما سيحنا يسا وحقولي هرد ما يسا نو مرة وين سيحده وحال يراهدا يو كلا عنقاس وحال لغا إلاليا إن قريقا لغا مقلو كلمة مايا هو يود إني آبها مايا كود هذا لا إنو مقلو نو إنو مقلو كلمة كاسر أو لغا إلاليا مركا عنقي وحو هذا يدلي عيكلا وفعنانا يا حتى لما أمر كوا لغا إلاليا إن هذا بح قل كآد لما ده وحال ده إن كان قل كان آذن أو كراعيا شيري وعنقي مركا يلا بس ثانية نص markuu 3 sano gaaro cunuga waxa la yiraahdaa waa marka cunuga uu ugu caatifada badan yahay fiirsada 3 sano markuu gaaro cunugu isbedela wuxuu isku bedelayaa inuu hooyadii maanta oo dhan hooyadii inuu agteeda fadhiyo oo uu la sheekaysanaysaa wuu maqlayaa uu ku dhageysanayaa qisooyin hadaad u sheegto wuu maqlayaa ilaa uu ka gaarayo 4 sano waxay dhahan culimadu waxay dhigi jireen waqtigaas cunuga waxa ku dhalatay wax la yiraahdo thawratul aatifa waxa weeye amal waxa waa inagoo niri oo kale cunugii wuu qarxaya asaga dhanba wuu dilaac cunugu isbedela wuxuu isku bedelayaa inuu hooyadii maanta oo dhan hooyadii inuu agteeda fadhiyo oo uu la sheekaysanaysaa wuu maqlayaa uu ku dhageysanayaa qisooyin hadaad u sheegto wuu maqlayaa ilaa uu ka gaarayo 4 sano waxay dhahan culimadu waxay dhigi jireen waqtigaas cunuga waxa ku dhalatay wax la yiraahdo thawratul aatifa waxa weeye amal waxa waa inagoo niri oo kale cunugii wuu qarxaya asaga dhanba wuu dilaacaya wuu koraya marka dareenkiisa caatifada ahaba koraya jacayl badan ayaa gelaya cabsi badan waa aragteen cunuga 3 sano jira wuu oohin badan yahay maxaa keenay oohinta badan mugdiga uu ka baqaa bahallada wuu ka baqaa dadka dhan wuu ka baqayaa waa marka ugu horeeyo cunugu uu barto inuu hooyadii iyo aabihi wax ka qarin karo hadduu wax xaseeyo inaan la heli karin markuu 3 sano jiro maxay salafkii samayn jireen waxay dhihi jireen cunuga markaas kale maadaama oo caatifad uu leeyahay waxay u sheegi jireen sheekooyin cunuga jacayl gelinaysa sheekooyin ku saabsan jacayl والدك عيالك استعل والدك نحريسته بدن عيالك نحريسته بدن بلو شيء جري وحلوقة شكل نحريسته إلهي وحال دي جري حق فريسو وحد كعل عليسا إلهي وإي أركا إلهي وإي ثير سنة يا إلهي باوين كعل علي الله أكبر سبحان الله كعل علي ولا بريا مركو عنق 4 سنة جارو في تربية كسعته عنق اسبدله يا هدنا محو اسبدله يا ثورة اللي ثورة السلوك وقاضنا يا رقم بو سمينا يا رقم عنقي أوي شلي أو عرري وحضرك يساقبك وكادر بيني يا ولاديا وحكست وجبينيا وحكست وكعياريا جرجو بربرينيا ومرك إنك عيالك عن لقطة كحرة وحضرك يسهوي صوماليات عنق حيوة 4 سنة جرى عمل سلسلة دا وحرن أي بعد موداوي جيديسا وأركتن وجيديسا وحضرك يساقوا لما قبل كرو سيئدنا أعلنيسي أو قيلنيسي عنق يبقى عنتو كبحيا وحالي عنق مركو أنت أسلقك يا هي oo dadka caruurta ka hadla waxay dhahaan cunugaas oo kale waxa lagu tarbiyeeyaa
oo lagu barbaariyaa in uusan amar adag looma sheego haddaad ahad ha samaynin ma dhaqaaqi kartid fadhi ma yeelayo waa inaad marka mashquulisid cunugaas marka suluuka cunuga markuu kor u kaco oo sanadka shanaad uu gaaro cunuga wuxuu gaarayaa marxalo kale oo la yiraahdo thawratul aqli buu bilaabayaa waa ciyaalka waartay markay 5 sano gaaraan waa marka ugu horeeyay fakaraya cunugii waxbuu fahmayaa su'aalu maanta oo su'aalu ku weydiinaya wuxuu leeyahay asaga su'aal gabadha walaashi su'aal ka weydiinaya cirku su'aal ka weydiinaya wuxuu dhici karta inuu ku yiraahdo hooyo chicken baa tustay muxuu yahay waxaan chicken waa chicken xagee uu ka yimid ukuntaan cunasay chicken u noqotay haddaad ahdid aad istiraad u sheeg uma sharxi kartid qaar baa waalidiinta waxay leeyihiin oo midaan cunno waa la duray marka ilmo ma noqoto gaasuu wuxuu ku leeyahay meesha laga duray itus waa ukun iyadoo dhan duuduuban xagee laga duray uma sheegi kartid maxaa la sameeyaa waxaa la isku dayaa cunuga researchka in la baro sida wax loo baaro waxaad leedahay kitaabaa loo soo gadaa buugaag baa loo soo gadaa cilmiga ka hadlaya waxaad leedahay markuu ku weydiiyo kaalay waan baaraynaa qolkaaga maktabada ageel librariga geli waxaad tiraahdaa kitaabka intaad u kala bixisid ii qabadhe uu qabanayaa waad rogaysaa markaad meesha soo bixisid ukunta waxay ka samaysan tahay waxaas u sharaxdid wuxuu iska dhigayaa inuu asagu fahmay laakiin haddaad been u sheegtay ama wax walba tiraahdaa anaa aqaana wuu ku fahmayaa hadduu ku fahmay inaad ciyaarsiinaysid oo beenbeensiinaysidna kuguma qancayo walidaalika markaas oo kale waa markay dhihi jireen xadiidka nabi sallallahu alayhi wasallam cunuga xataa idanka waa la weydiistaa wixiisa lama taabto markuu 5 sano gaaro nabi sallallahu alayhi wasallam caana loo keenay wuu cabay wiil yar baa midigtiisa fadhiyay niman odayaal ana way fadhiyeen markaasuu nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ma ii idmaysaa inaan nimanka waaweyn siiyo waa cunug yar markaasuu wuxuu kuma idmayo waa cunuga baawar buu isticmaalaya cunuga yarka kuma idmayo markaasuu nabigu wuxuu waa yahay qaado حسن النبي صلى الله عليه وسلم ويلكيسي أيام ما لنا هل تمر أقاطع أو صدقاء أفكو جلي النبي حكوي كخ أخ طف مركزوي وطفي سوي ميادن أجين إننا صدقاء النوب بنانين أو صدقاء أنان عنين وريزن فيري هو ريزن قرينا هو شيء وايد لو قد دي وين أو شيء هذا ترى هتابنن محو سمين يا وتابنا يا إنك محو سمين نصوص وتابنا ونحرينا لقطان كحرينا صريرتان كحرينا ما سعنيس وانا عنق او شيغتي oo ka dhaadhicisi markaas oo kale markuu cunugu 6 sano gaaro cunugu wuxuu gaarayaa marka la yiraahdo al-tamarkuz ala dhati marka naftiisa uu ku fakara inta badan wax kasta ana le waa in aniga ciyaalka la igu jeclaado waa inuu wax kasta asaga guriga ugu khatarsan waad aragteen ciyaalka marka 6 sano jiraan wuxuu wax kasta inuu asagu leeyahay 7 sano markuu cunugu gaaro iyo 8 sano iyo 9 sano waa 3 sano oo cunuga ugu muhiimsan noloshiisa ilaa 10 sano 4 sano 3 sano oo 7 iyo 8 iyo 9 ka ah waxa la yiraahdaa cunugu 3 darajo mara mid waa ta'ammul inuu fakaro cunuga ciyaalka 7 sano jira way aamus badan yihiin nabigu muxuu yiri saan uga faa'iideysano مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 تضوا سنة مركي جيران وعنقوا فكريا قلقوا اسكسوا حريا كل يافر إسانيا وحتى لا تكو صلاة أشك فيري صلاة أشك إلهي كعب صدق إلهي عبسيس أغشك إلهي أغشك أوديس وفهميا مركو 6 سنة جارو عنقوا وحصمينيا مرحلة تجربة وامحي إنه اسكتوا وحكست إنه أسوا بارو أو فهموا وحالها إعاوي مرك إلى الشقاء إنه كل الشقاء يعنق هداد أرق ليس حتى أتلا هرق كبح هذيك يقرقبه إن هذا واحد سمينيس جرجع إن أتلا هذا كلين جرا مركو 9 سنة جارنا عنق وحصمينا يا وحكست إنه يقانو سكودية وحكست حتى هذه وحكلا وخلدنته وعنق مرك أورث والدك وكنا وخلدنته وحكلا no it's not like that ما means not like that هاي ساس معها أبا ساس معها ساس وي أنا سكول كساس عن كل وعنقي وحو سمينيا wax kasta inuu yaqaano iska dhigaya waa inaad marka taqaan cunuga saad ula dhaqantid ikhwaani 10 sano markuu cunugu gaaro waa markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam cunuga salaada ku dila oo ku khasba maxaa laga wadaa xikmadda ku jirto waxa la yiri waa marka cunugu uu raadiyo istiqlaaliya inuu madax banaanaado banaanka inuu aado
inuu saaxiibo samaysto inuu guriga ka baxo waa marka ay bilaabanto teenage-ka meesha ugu horeysa ciyaalku ay ka soo galaan haddaadan cunugaaga 10 sano maalintuu gaara gacan ku dhigin weligaa gacan kuma dhigi kartid ha ku fakirin wuu kaa gacan baxay 10 sano markuu gaaro waa inaad mas-uul ka noqon kartid waxaan marka gelaynaa mawduuca qaybta ugu dambaysa oo ahayd qaybta mawduuca ugu dambaysa oo ahayd cunugii markaan intaa ka soo sheekaynay oo 10 sano uu gaaray raganimadii baa ka muuqata wiil yar buu yahay waa arteen dugsiyada maanta oo dhan muruqooday fiirinayaan 10 sano u jiraa gabdhaha maanta oo dhan make up bay samaynaysaa way isqurqurxinaysaa way labisanaysaa way timay deysanaysaa waxay iska dhigaysaa qof dumar oo weynaaday bas ka dhigaysaa way hana qaaday cunuga markaas oo kale waxaa la rabaa inaad taqaanid saad cunugaaga ula dhaqmi lahayd dhaqanka cunuga marka aad kula dhaqmaysid ayaana wax yar insha Allah ka sheegaynaa waxa dhaqankaas ka mid ah horta waad aragteen ciyaalka 7 sano markuu gaaro waa inuu cunugaagu haddaad tahay qof fiican ugu yaraan waa inuu yaqaano juz qur'aan ah sida loo tukado adkaarta la akhristo sida dadka waaweyn loo ixtiraamo waa inuu wixii wanaagsanaa garanayo oo cunugaaga aad la hadli kartid dad baa ku soo booqday inagu waxaan naqaanaa cunugii waa la cayrinaya ama waa lagu qaylinaya waa la canaananaya asaguna maanta uu ku rabshaya hooyooyinka waa aragteen markay telefoonka qabsato wuu qasaya laakiin haddaad la hadli kartid oo dhahi kartid aabbo ama hooyo dad waalid aha noo yimid waa ehelkeennii waa adeerada iyo eedooyinka waxay rabaan inaan ixtiraamno ixtiraamka ay igu leeyihiin waa inaan u sheekeeyo adigana ixtiraamka ay kugu leeyihiin waa inaad ixtiraamtid ood ka aamustid ood biyo u keentid ood shaah u soo karisay aad dhahdid cunugii wuu isxilqaamaya haddaad laakiin ku dhahdid waryaa dameer yaho waryaa doqon yaho waryaa saqajaan yaho waryaa tuug yaho wuxuu iska dhaadhicinayaa inuu tuug yahay wuxuu iska dhaadhicinayaa inuu dameer yahay xataa sida dameeruhu u qaylinayaa bay culimadu dhaheen wuxuu iska dhaadhicinayaa wax kasta ood ku dhahdid xataa wuu ku xadayaa cunugii wuu ku xadayaa marka dhaqanka cunuga lagula dhaqmo waxaa ka mid ah ikhwaani mar kasta waa arrin innaga naga maqan cunugu wuxuu leeyahay xaqu ducaa in loo duceeyo fiiri inaad cunuga u ducaysid nabiga sala allahu calayh wasalam iyo ambiyadii ilaahayba waxaa ka sugan inay carruurtooda u ducayn jireen nabiga sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi 3 duco waa la aqbalaa shaki male waxaa ka mid ahayd dacwatu lwaalidi liwaladihi waalidku ducada uu waladkiisa u duceeyo cunugaaga waxaad ducadaad u ducaysid waad garanaysaa ninkii qur-aanku sheegay suuratu axqaaf markuu koray oo ilaahay uu nooga sheekeeyey oo uu gaaray 40 sano uu koray oo uu caqli yeeshay oo uu gaaray awood yeeshay muxuu yidhi wuxuu leeyahay rabbi awzicnii an ashkura نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إلهي عرورتي وناجي فيري إنا تكتب إلهي عرورتي وناجي إلهي عرورتي وناجي إنا دهني النبي الله إبراهيم وينيجي شيء إنه ديجري ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي إلهي أني عرورتي إذا كوا سلادة كذا نقدك عيالك ويكون مغليان إنا ضد عينيس ويكون مغليان النبي صلى الله عليه وسلم ducada uu ciyaalkiisa u ducayn jiray waxaa ka mid ah xasan inuu ku dhihi jiray allaahumma innii uxibbuhu fa axibbahu ilaahayo waan jecelahay adiguna jeclow bukhaari baa wariyey riwaayad kaloo bukhaari wariyey wuxuu leeyahay xasan iyo xuseenba wuxuu ku dhihi jiray allaahumma innii uxibbuhumaa fa axibbahumaa ilaahayo waan jeclahaye adiguna jeclow ikhwaani fiiriya tasawar cunugaaga oo adiga aad ku leedahay ilaahayo waan jecelahay adiguna jeclow seebu dareemaya 12 sano jira 13 sano jira seebu dareemaya sacaada farax buu dareemaya cunugii waxay warisay xadiis imaam ahmed uu wariyay salama waxay leedahay markii la xuseen waa la dilay ayay way calaacashay markaasay waxay tiri ma waxay dileen xuseen markaasay ka sheekaysay markaasay waxay tiri maalin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam faaduma u timid faaduma waa gabadhiisii markaasuu wuxuu ku yiri ina adeerka iyo labadiisii wiil ii keen waa cali oo ninkeedii iyo labadeedii wiil xasan iyo xuseen way keentay ayadoo wada labadaa wiil say nabiga u jeclaayeen waa aabahood camal waa awowgood
markay arkaan oo xagga ay arkaan isagoo soo socda carabkay u soo bixin jireen soo u shumiyo fiiriya carabkay u soo bixin jireen intay soo qoslaan soo u shumiyo nabi sallallahu alayhi wasallam waa ciyaalkiisa camal markay u yimaadeen nabigu go'buu qaatay ama buste maruu qaatay maradii buu isku daday Faaduma iyo Cali iyo labadii wiil buu ku daday shantoodiiba gacantuu ku qabtay gacantii kale u taagtay markaasuu wuxuu yiri Allahumma ahli ilaahayow reerkayga fiiriya bal adhib anhum ar-rijsa ilaahayow wasakhda iyo dhibaatada ka dulqaad wa tahhirhum tathiran ilaahayow taahiri saddex mar Allahumma ahli fiiriya bal Allahumma ahli ilaahayow ehelkayga xumaanta ka qaad oo taahiri saddex mar Salama way masirto waxay tiri rasuulka ilaahay anuu soo ehelkaaga ma ihi naasuu nabigu yiri haahe aduguna bustaha soo gal ducadii buu ku akhriyay waxa kale ikhwaani qodobka labaad ah cunuga inaadan habaarin waad aragteen waalidiinta waliba aabayaasha waxa dhici karta in ciyaalka habaaraan hooyooyinkeena iska badaaba waxyaabaha sugan nabiga waxa kamid sallallahu alayhi wasallam inuu dhigi jiray xadiis sahih muslimka ku sugan la tad'u ala anfusikum naftina ha habaarina adu naftaada ha habaarin alla gablamayay balaaya igu dhacdayay hoogayay hadhihin ha habaarin waliga ha habaarin wala tad'u ala awladikum arurtinana ha habaarina arurtaada ha habaarin hadhihin balaaya kugu dhacday cirka lagu qaad bala ku daftay saan ilaahi ku gal hadhihin ولا تدعوا على أموالكم مالكينا هبارنا بابور كاغا يا غوريغان باس بان نعي بابور كان باس بان نعي هديهن والنبي صلى الله عليه وسلم لا توافقوا من الله ساعة هداد ساعتها وافقنا يسأل فيها عطاء إلهي وحلو ويديستو وقت إلهي وحلو ويديستو فيستجيب لكم مرك الدعاء وإذين أقبليا هبارك وكو قبنا يا إلهي وحاتري إلهي وكم بلايا كريد بلايا كن عايز ولا شك يا إخواني مركي عيالك ويديان waxay dhahan dugsiga macallin haday hooyada xataa ay iga gardarantahay haday habaarta ma igu dhacaysa fiiri xataa hadaad ka gardarantahay adigu hadaad habaarto cunuga way ku dhacaysa xataa hadaad adigu ka khaldantahay haduu asagu khaldan yahay iska badaaba waliga cunugaaga ha habaarin inaad u kasta ma ahan hadaad balaaya haday inaad ku dhacdo oo balaaya dafta habaar hadii kale ha habaarin إخواني وحكلا أو قفك مسلم كألا جربه إنه عنقيس كتر بيه أو مرول بكلد داله إن عنق أوصن عي برين بلو في صدى عي إنه صبرين عنانتنا إنه كيريو عنانت بدن عنق وما فعنا حتى هدو خلادات سمايو وحي علماء دهان عنق وجيران طبعاً خلاد مركز همايو شن كمد أول لقى إن الله باوي والس إلوسيا هدينا نهين وحوين أو معصية هدينا نهين نبيجا كدايش عن ناقصوجا ولنا في أسوة حسنة حاسس كيس مركي قاركل ورك شيئان ورؤكو قرصة عائشة وحيلاه كسود تجويد أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض قارب أشيغي أو كعنانتي قارب وكجيس واسكدافي فيري حاس كاغا عيال كاغا وحا اي قلان إن القاركو اسكدافتيدو اسئلوسيس وحوال بهداد كو قبت عنقي يودن وخلخليا كالسوني دي باكا دميس عنقي وحال رأي إنو وح اسكو تراي قرايا إنو خلدمو إنو وح صحو هداد وحوال بترا هسمينين عنقي كالسوني دي باكا دميس وحاكلو كمده تدريب الطفل على طاعة منذ الصغر عنق أسقو ير إنها تكبر بارس طاعة إلهي قبلها أيغو ير حجابك وليش أيغو ير حشوتك قرآن أخرسك هذا الكمعان إنها تكتر بيسن وينشأ ناشئ الفتيان فينا وهذا القبي بوها وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وحي أبيه بري أي عنق كبر بارا وحي أبيه بري محال قوضها عنق وحي انتو يرى ما ننتو لشيء إلا ما ننتو توبان كسو قاري وحاد كوة دي با عنق مركو وين هذا كسو بحي نبا النبي قوي صلى الله عليه وسلم صحابي وحكيري حديث بخاري كسوغان رسولك إلهي وحي أن سمين جري حقي آدي دونان
nabigu muxuu ku yiri aslamta ala ma aslafta min khayr wixii khayraha ku hormaray waad ku dul islaantay oo waad wadataa bal qofku wuu sii ziyaadanaya cunugi wuu ku badanaya wuu wadaya waligiis khayrkaas waxa kamida tashjiicuhu ala alkhayr cunuga khayrka in lagu dhiiri galiyo in cunuga dhiiri galis wuu tray garay quraan buu akhriyay hadhiin carabkaaga xun waligaa saanaad ahayd adigu damiin baa tahay iskuulkiiba imtixaan galay wuu dhacay ama wuxuu keenay darajo hooseysa dagaal ha ka hor keenay waxa dhahdaa waa tray garaysay naga sitaamna waa ka si fiicnaan doontaa nabiga sallallahu alayhi wasallam laba wiil baa u yimid ghazwatu uhud labada wiil waa wiilal yar yar waxa la kala dhigi jiray mucaad ibn afra iyo mucaad ibn amr ibn jamuh labadoodiiba waxay isku haystaan abu jahl ana dilay iyo ana dilay nabigu soo dhiirigelinay fiiriye wuxuu ku yiri safety-ni ma masaxdaan oo dhiigi ma ka tirtirtaan kaasay waxay dhaheen maya itusawiir wuu fiiriye nabigu wuu fahmay mid ka dilay laakiin wuxuu ku yiri kilaakuma qatalahu labadiinuba waa disheen markaasuu ninka wixii laga furtayna wuxuu siiyay mucaad ibn amr macnaha isaga dilay way fiiri cunuga in la yiraahdo ma sha Allah waa tray garaysay waad fiican tahay you did excellent gaalada u fiirsada ciyaalka inagu aan dhalay maxay maanta oo ku wadaan excellent very good wow cunuga si loo wado wuxuu isu haystaa inay gaaladu inaga naga jecel yihiin Soomaalida arag wuxuu ku leeyahay wax kastoon sameeyay macallimada iskuulku excellent bay dhahdaa wax kastoon sameeyana hooyada qayla ka soo horeys macnaheedu waa maxay cunugu ku nacaya waa inaad marka cunuga dhiiri gelisid oo uu ka maqlo kelimad dhiiri gelina inuu ka maqlo waa arteen anagu markaan ciyaalka ahayn adduunka ilaahay waxaan ugu jeclaan jiray markuu aabahay idhaho ilaahay khayr ha siiyo oo idhaho waa fiican tahay markuu wax ii diro oo intaan ordo aan soo qabto wuxuu dhihi jiray warma dhexdaad ka soo qaaday gurigii maba aad gaarine markaas aan farxi jiray markaas hadda wuxuu leeyahay adiga ord badan ii soo qabo waa ordaya si la ii amaano oo soo qabanaysa markaad keentid wuxuu ku leeyahay ma sha Allah warniyaho hal minad ma aysan u soo qaaday saadleed maanta waan soo orday haddii cunuga dagaal ka hor keentid dagaal hadaad ka hor keentid wuu ku nacaya cunuga wuu ku dhibsanaya mar hadda waxba kuma qabanayo wuxuu leeyahay anyway dugsiyada saasay dhaan anyway wax walba on try gareeyo I will never get something so why do I care waa arteen maxaa iga galay aniga wax walba waxa leeyahay you fail waa dhacday baa leeyahay marka cunugii nafsadiisi kalsoonida ka dhumays in la tashjiiciyo marka waa fiican tahay lagu yiraahdo haddii ay dhacdo wala fiirsada inuu cunugu sameeyo wax xaq uusan u lahayn laakiin uu isleeyahay xaq baad u leedahay ma aha inaad la dagaashid waa inaad horta u sharaxdid inuu khaldan yahay inaad tustid waxa dhacday maalmaha kamid xadiis an-Nasa'i uu wariyay wiil taabiciintii kamid oo dhijray Qays ibn Uyaad ayaa safka hore galay Ubay ibn Ka'ab ka soo qabtay fiiri seebu dareemaya cunugaas muu xanaaqay oday baa gadaal iga jiiday gadaal buu igay salaadii marka laga buxo ii yaaray saxaabigan fiiriya kaasoo wuxuu igu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuuna amray inaan anagu ku xigsanno caruurtuna ay gadaal maraan fiirso u tarbiyeenayo waan fahmay buu yiri maalintaasaan fahmay marka inaad dahdid waxaan dadka waaweyn baa loogu talagalay ciyaalka yar yarka ana looguma talagalin arintaasna kuma jirta hadda ogaada waxyaabaha xunxunka inagu maxaan sameeynaa bahalkan HBO iyo balaayay fiirsanaysa waxay leedahay hooyo waxa loogu talagalay dadka adaltiga adoo qolka gal ma saxba ma ka yeelaya cunugaas markaad baxid baa asna tray gareynaya isku dayaya inuu wixii arko laakiin haddii wixii wanaag ah dadka imaanaya waa dhihi kartaa waxaan waxa loogu talagalay dadka waaweyn adigana saana tahay hooyo laakiin inaad wixii u sharaxday cunugii waxa kamid ah ikhwaani cunuga الحنان والتقبيل عنق إن لا ننكضه أو جعيل كأركو إن أتجعشها عنق أقولوا فهمه نبي فاضم ونكضي قبديسة أبو بكر قبديسة عائشة وشمين جري نبي ويلكس إبراهيم وشمين جري حديث بخاري غير كقصوغان ننكر هير باديها ويرى أنه عيال كان ما بدون كان نبا نبي وكو إنكره النبي صلى الله عليه وسلم عنق بشميي نبا يري طبويل باندلا ولا جميت كم إذا مردون كانين نبي وحوي هدينا حريصة إلهي كاسي بمحن كوقا بنكرا معناها هذا وامحي وحديع كرت إلى جيران والدين ولي عنق سأن وناك تسن
wuxuu ku leeyahay cunugan bihinta lama tuso. waxaan ku soo khatimayaa oon ugu dambaysiinayaa insha allah cunuga intuu yar yahay inaad la ciyaartid. nabigu xataa ciyaal waxaa jira uu biyo ku tufi jiray, uu la ciyaaraya, biyo ku sayraya, way qoslayaan iyaguna. waxaa la rabaa cunugaaga marka uu yar yahay inaad macallin fiican u geysid. waxaa la rabaa cunugaaga xataa markuu weynaado inaada ka harin, gabadhaada markay qaangaarto inaada ka harin, xataa markay guursato inaada ka harin. nabigu gabadhiisa Faaduma iyo Cali intuu albaabka ku garaaco ayuu wuxuu dhihi jiray war tukada oo kaca. kafiiri ciyaalka say u madax adag yihiin waa gabadhiisii Faaduma iyo Cali. markaasay waxay ku dhaheen cunugaaga markaad wax u sheegto wuxuu ku leeyahay hooyo qof weyn baan ahay, I know what I'm doing, iga daa, waan ogahay waxaan samaynayo. saasay sameeyaan nabigii ku dhaheen ciyaalkiisii. Faaduma iyo Cali baa waxay ku dhaheen markuu kaco oo tukada ruuxdeena ilaahay baa iska lahoo qaatay, markuu soo celiyaan kacaynaa. fiiri كاسو النبي وحكي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بني آدم كو مدح أذكي هسوي ده يكتجي. إخواني إن شاء الله وحنقص ختمة يا إن أتكيل لسعون قالوا إنه كأركه وحد الشيء أذوق إن هذا السمينين. فيني وحد السمينين يا وحد الشيء إن كل دوانين. وحد الحجاب كحراء إن أذوق حرت. وحد السلاة التكو إن أذوق التكنيسي. waxaad tir quraanka akhri inaad adigu akhrinaysid, waxaad tir sigaarka iska daa inaad adigu iska daynaysid, inaad waxaad u sheegaysid aduguna aad samaysid. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dhurriya saalixa na siiyo inaga dhan kuweennana uu noo hagaajiyo. wallahu yaquulu xaq wa yahdi sabiil.